السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada koorsadeena AutoCAD drafting course videogeena maanta waxaan kusoo qaadanaynaa lecture 10 oo aan ku baran doono using array tool. Array waxtarkiisa iyo markii la joogo AutoCAD faa'iidooyinka uu leeyahay iyo qaabka loo isticmaalo ayaan isla arkaynaa. Halkan waxaa noo furan AutoCAD keena ayaa noo furan. Array hadaa rabto inaad horta wuxuu ku jiraa qaybtan ayuu ku jiraa modify-ga ah ayuu ka mid yahay waana midkan waa array marka halkan waa laga soo doortaa laakiin marka furto qaanadan waxa ku jirto saddex nooc rectangular path iyo polar marka array macna kale ma laha af Soomaali ahaan hadda ma laha terminology laakiin wax kale ma hadii sharxad aan kaasi waxay tahay hal shay in koobi badan laga sameeyo oo dhowr shay inta laga dhigo adi qaab aad jeceshahay u safato marka yani shay hal shay waaye oo la badinayo dhowr xabaa laga dhigaa tusaale ahaan rectangle meeshan iyaalo maalan rectangle halkan ani iyaal rectangle kaano badan raba inaan sameeyo soo marka waa isla faan hadda arrayga waa in shay koobi badan laga sameeyo okay soo marka saddex nooc loo sameeyaa rectangular wuxuu ka wada rectangle waxa ogna afar geesood waaye soo marka raba ina dhinaca x na aan u safo shaygayga dhinaca y na aan u safo hadaa rabo waxa isticmaalaa rectangular kaas waa ilfaanta x iyo y u safaa markii 2D ga la joogo hadii 3D la joogana z oo ku daraa yani okay path kana maxaa waaye waxa u sameeynaa wada u sameeynaa macnaha adaa wada u sameeynaa wadadan raaci alle hadda sida sawirkan meesha uu ku sharxayo u fiirso waxa u jeedaa bahaladaas guudka link raacin okay path u sameeynaa marka kana maxaa waa polar waa yani shay circular ah naqshad circular oo kala sameeynaa ku wareejiya leeda marka okay ina wada faanarija mid u arkayna marka rectangular ko kala no aan ku bilawno inta waa ka soo dooran kartaa ama hadii kala sameeynaa kaliya inta ku siido oo wuxuu ku leeyahay shayga horta dooro okay shayga kan waa leeyahay kadib marka doorato inta la leedahay saddex nooc jirto okay hadda maxaa noo gashnay kii rectangular ka ahay okay soo marka hadana mid kala jirto waxa sameey kartaa AR na waa u geli kartaa okay AR aw dooranay okay afwan hadda aan ka laabano midaaba noo sameeysan okay AR aan leenahay okay marka hore rectangle ka gashan yani shay walba u fiirso hadda meeshaan oo kale maxaa ku wada jiro meeshaan oo kale maxaa ku wada jiro rectangle iyo polygon haduu kan dooran yahay polygon ka shaqeynaya hadii kan uu dooran yahay kan hadda marka rectangle sababta u qaadanay xitaa rectangle ka asaaba dooranba ina inta ka bedesho waa okay soo marka hadda rectangular ka soo ma doorno fiiri kligan ku siina mugtaa shayga aan kuugu sameynayo arrayga isha kan waa leeyahay inta dhah okay soo markaas markuu u galiyo by default marka sidoo computerka applicationka uu ku imaado wuxuu ku sameeynaa afar column iyo saddex row column iyo row waxa laga yaabaa dad badan inay aqoon halkaan ay kaaga cadahaba kuwa verticalka u safan oo saan u safan 1 2 3 4 joog ahaan u safayin macnaha afar joog waa column-yadeena rows kana kuwa jiifa waa 1 okay waa 2 hay waa 3 saddexaas ay row waa waxba ka bedeli kartaa marka adoo inta joogo waxa ka dhigay waxa iska dhahay shan iska dhaadiga shan iiga dhig u fiirso uu kordhaa fiiriya meel kale ku dhufo kartaa taas dadkan inta dhahay okay inta rad iska dheh maxaa u jeedaa okay shanta hadda waa ku sameeysan yahay okay waxa sameeynaa shantiya tusaale ahaan lixa ka dhigay meelahan oo kale isaga dhufanay ama shaashada meel kamid ah isaga dhufanay okay saas uu u badiyay kan hadda meesha saddex ka ahayna shan iiga dhiga iska leedahay okay mujeedaa shan xabo kaaga dhigay soo marka wada kale ma jirtaa ha wadada kale waxay tahay falaarta inaad ka bedesho okay manual macnaha adoo gacantaada isticmaalayo okay adoo gacantaada isticmaalayo waxa sameeynaa falaartan oo kala qabanay waa hayne maxaa u jeedaa okay hal mar aan isla fiirino tan space ka waaye okay afwan tan space ka waa hal mar aan ku dhufano midaan space ka wax ka bedelay midana column ka xisaabtiisa okay hadda maxaa u jeedaa marka haayo maxaa u jeedaa 7 8 waxa fiirisa meeshan oo qoraalka column ku hadda 2 waa sax 3 saddex column aan ka dhigaa bartaas aba kali ku siinaa okay saddex column noqotay tan halkaan aan kali ku siinaa kali marka ku siido waa ka foqay macnaha ma ku dhageysid triska hoosa kala soconay okay saddex uu leeyahay hadda 2 okay kaligan siiha marka meesha maxaa u jeedaa saddex column oo kuwa jooga ah iyo waxa u jeedaa saddex row waa saddex ay saddex
waxaa kaloo marka meesha ujeeda aan rabnaa inaan barano hadda meeshaas waa qaabka manual ah halkaan ku dhufanay dhag markaa ku siido adila meesha harta u wadanay afar column hadda iiga dhigaa dhahay click ah ku siinay kana qabanay hadana click markaa ku siido muuska inta u baxay click ah siinay okay maxaa kaloo meesha ku yaal base pointiga intaan gaarin aan distance faano meesha waxa yaal between wuxuu ka wadaa meesha waxa ku yaal afar column distance u dhaxay marka muhiimadu waxay tahay in la fahmo hal markan close array naga dheh muhiimadu distance-ga waxa laga xisaabinaa waa from here u fiirso waa from here halkaas ilaa halkaas distance lagu sheegaa marka waa intaas ha ku kadsoomin macnaha qofaa wuxuu isaga qaadanaa macnaha clear distance okay distance-ha marka waa meeshaas hadda maxaa ku qoran meeshan 13.08 something ma ku qorno okay suug marka aan ku dhufano 13.08 so uma jeed saa marka distance-ha waa kaas waa okay distance-ha marka waxba ka bedeli kartaa oo hadda ku soo dhufo marka ku soo dhufo 13 Soomaa adiga waxa iska leedahaba 13 maano 20 ka dhigba 20 meel kale isaga dhufo marka kana 18 waa moogtaa kana 18 maadaama uu yahay kana 15 ka soo dhig soo yaray okay so marka qaabkaas distance lagu bedelaa totalka marka muxuu ka wadaa marka afar column haysato meeqa space leedahay afarta le halka jare afar column soo meeysatid adi space-deeda 3 waa 1 2 3 space waa macna markii space-ka waxaan ka hadlaa marka halkan ilaa halkan laga soo xisaabiyo 1 waa space kale maxaa waaye waa from here up to here waa 2 okay hay space kale waxaa from here up to here okay so marka adiga waxaa haysaa 3 space 3 meelood oo 20 meeqa marka 60 taasna saas u faham macnaha kulli waa fahmi kartaa dareema tan kale ku soo hartay waxay tahay waxyaalo yar marka waxa sameynaa markaan waa iska tiraa sidoo kale okay wax yar waxa rabaa ayagana oo inaan ku baraarugsanaato muhiim ay tahay no door rectangular noogu dhufo hal mar mid uga bixinaa saddexdooda enter dheh okay hadda saan oo kale marka kuugu sameey meesha maxaa u jeedaa associative waxa laga wadaa isku xiran yahay hal shay oo la edit gareyn karo oo hal mar wax laga wada bedeli karo waa wuu saaran yahay hadda active waa macnaha way ku dooran tahay oo sida software-ku u shaqeeysaa hadda laakiin ka qaad maxaa dhacay ma taqaana okay hadda ka qaad maxaa dhacay fiiri waa ka qaad Soomaa close array okay hadda marka fiiri waxa u jeedaa ashyaadi ma isku xirnaba marnaba ma suurta galaysa ina hal shay ahaan amal shayashan hal shay amal ahaan ina ula dhaqanto ma suurta galayso oo array-ga isticmaal hadda aniga hadaati waa isaga dhufanaa array ahaan igu doormayso soo marka ماشي وكبحدا هذا مركا associative وإنه هذا لازم أوكي سو مركا array ده شيء أنا رأينا بدي إنتر ده محاكا لو برنا base point تيجا وبرت أديك تحرع عقوة أنا قال كان base point نوع أوكي وكبدلي كرتا مركا base point تيجا صوت داره أدي مال لجوا كلها وحاليا إنه كان رح يدي إنك سو في عنده أنا سنتر كيسرة هذيك راه mid point تيجا أنا إلا هالكاس أنتجا هذانا mid point تيجا هالكان أوكي ساسو هذا أنكو ألوه لا فرسموا معنا okay base point-ga halkaas waa base point-ga marka faa'iido u leeyahay xitaa ina shayga meel asaga qaadi kartaa kaliya ku siinay sida kuwa nambarada ugu badinaysay oo kala waa okay kan space-ka laga badiyaa sida aan ku sheegay fiiri waxa sameynaa kaliya ku siin jida space-ka okay laba falar waa space-ka kalena oo kor kana loo jeedo soo marka base point-ga faa'iido u leeyahay xitaa kaliya ku sii waa qaaday fiiri inta iska dhigaa dhahay kaaskii laga farcamo waayaa waxba ku mashquul hadan halka idhi I hope in la fahmi waa soo cankara marka saas hadda waxa uga baxay aniga ama hal mar aan isla fiirin wax yar oo asayna ayadana muhiim meeshan associative ima doorno okay soo marka waxaan sameynaynaa iska tir wili rectangular-ka kama bixin wax yar ay ugu dhiman okay array enter soo marka close array dheh marka la ku soo laabo okay sababta ma taqaan hadda inuu ugu darmi laaya associative nooma aha okay soo marka waxaan sameynaynaa waa dooranaynaa rectangular noo door enter dheh fiiri meeshaan associative ka qaadan yani waxa commandiyada in loo barto muhiimka u tahay waa saan oo kale ina iska darantaa la raba adiga xagee wax ka qaldiin oo kale associative noo door okay close array naga dheh marka hadda marka fiiri anigu wal ma qaba hadda fiiri kaliya taa ku sii shayga way edit gareyn kara marka maxaa rabaa edit source fiiri shay ka farcaman sax وانا كان انه هان جعله وحبا انا كبدل راه سؤال اهان waxa rabaa inaan circle oo kale ku daro
okay edit source edit source marka dhaha muxuu yiri marka select an item waa dooranayna arraygeena dooranayna okay wuxuu leeyahay edit source objective of the associative array arraygan isku xiran shayga source-gu u ahay wax ka bedel okay hay midka uu ku dooranayo ogaaw markasta waa midka base point-ga ku aadan waa hadda base point-ga anaga halkaan u fadhiyay sax haduu kan ku joogo kana la doorana source-ga kaas ah macna markasta reference ama base point-ga kan uu ku dhex yaala laga tixraaca soo marka su'aal ahaan circle oo kale iska soo doorana dhaxdo kala rabo inaan ku aadiyo isug mid point-ga sadwa haya vertical-ka ah mid point-ga horizontal-ka ah soo marka waa kaas intersection-ka mid point-ga circle-ka fiiriya waxaan ku daraa 15 mid yani radius-kiisu u yahay enter ide maxaa u jeedaa automatically kuwa kale way qaateen laakiin wili ma aadan dooran macnaha oo waxa wili sida full amal uma ah kan oo kale marka maxaa sameynaa meesha kale edit area amaana save changes leeda okay soo marka waxaa u jeedaa source-ga waxaan ka bedelay wax kale hadana ku baraa u fiirsiyaa meeshaan polygon ka dooranaa polygon oo 5 dhinac leh okay marka waxaa sii dooranaa edge okay maxaa u jeedaa hadana fiiriya inta doortay replace item aan dhihi karaa shaygan macna iga bedel ba source objective wax kale igu bedel rectangle-ka ma rabo ani hay replace aa leedahay marka soo doorato wuxuu ku leeyahay shayga replacement-ga lagu sameeynaa waa replacement objective soo dooro okay waa kana ha leeyahay okay marka soo doorto kadib waxaan leeyahay enter base point-ga dooro marka waxa sameyn kartaa base point-ga dhinac kamid ah kana iska dooran kartaa okay iska qabso marka doorato waxa sameynaa source aad dooranay maxaa u jeedaa kadibna exida iska leedahay hawsheedu waa dhameystay close array ide soo marka maxaa u jeedaa uu ii bedelay okay marka rectangular halkaas aan ku soo koobaa waqti badan oo iga qaatay waxa rabaa markaan inaan isla fahanno hadana pathway marka si aan u barano waxa wada inaan sameysano waa qaybtan drawga fur splines-ka aan soo baranay isticmaal okay okay enter ida halkaan aan ku ekeena okay soo marka waxa rabaa line-kan sidaan u qaqaloocan inuu shay aan raacsiiyo su'aal ahaan marka waxaan soo qaadanaa polygon oo kale iska soo qaado oo 5 edge leh 5 maahane 8 ka dhiga daarad okay edge ala yahay edge ana u doorana soo marka waa yareena okay soo marka hal dhinac ka hanso marka waxa rabaa kan dooro marka doorato ama waxa sameyn kartaa asaga dooran kartaa kadib path ka sii dooran kartaa ama waxa sameynaa path array inta soo doorato objective dooro ku leeyahay waa kan hal leeyahay enter aan leeyahay okay wuxuu ku yiri marka select path car wadada raaci lahay dooro tan waa leeyahay maxaa u jeedaa marka meeshan sida maska oo kale u raaca macnaha kan marka maxaa kugu soo kordhay inta badan midka bowlerka ah oo noo dambeeyo kan saddexaad iyo kan inta badan angle ahaan loo xisaabiyaa tusaale ahaan angle wuxuu ku xisaabinaa from here up to here okay kan meeshu ka bilawdo ilaa kan meeshu ku dhamaa oo ka kala meeshu ka bilawdo intaas u qaadana soo marka meeqa item macna meeqa midda kale wax yaraan ku tusaa u fiirsiyaa associative uu yahay basement waa fahansata waxyaalahaas oo dhan okay meeshan align muxuu ka wadaa saf waa saf fiiriya adi difference ina indhaha ka darantaa la rabo fiiriya align ka qaada okay waxa ujeedaa align difference ma jeedaa okay yani markaan align ay ku dooran tahay qaabkii aad u doorata adiga u safaa oo israacsiina laakiin alignment-ga ka qaldama misaal kala ku tusaa okay misaal kala ku tusaa oo kan kaaga fudud waxaa sameynaa rectangle u fiirso rectangle ayaan sameynaa oo laakiin rotation ku jiro okay angle ko tusaale ahaan angle oo waxa iska dhahdaa 60 degree ah okay kanoo kale aan soo doorto fiiriya move ide move marka dhaho halkaan ii istaaji okay kadib kana path ku sameynaa okay waa doortay enter aan leeyahay pathkiisa wadada u raaci lahaa waa kana ha leeyahay okay waa ujeedaa Soomaa tusaan u raaci soo marka
align ka haddaa ka qaado waa kaasaa ujeedaa. Okay, haddaa align ka dhigtana waa ujeedaa. Okay, so marka maxaa kaloo noogu dhiman marka? Okay, splines-keena noo sameey mar kale. Okay, circle. Okay, select object, enter dheh, kadib select path. wakana wadada soo raaca. So marka waxyaalaha kale number of items ka oo kale waxyaalahaas oo dhan waxay la sameeyeen kii hadda close array hal mar ida door yani inta shay arabto adiga badin karo. tusaale ahaan hadda rowgan sidoo kale badin kartaa. hadda hal row waayo sax, hal jiif waa sax, waa badin kartaa. adaa waxa ka dhigay 3 jida meel kale isaga dhufum jida 3 oo kaaga dhigay 3 jiif. Okay, waa dhinac walba saas u yeelaa. waxaan isku qasayaan wax kale maana leenka qaabka u qaloocan qaabkaas oo kale ah. Okay, so marka halkiisa row u daa midda kale angle ahaan u xisaabina. angle-ka hadda anaga waxa noogu jiro. Okay, distance-aha macnaha distance-aha markaan meeqa waay. tusaale ahaan hadda waa soo yareenaynaa, waxa ka dhigaynaa 500 oo kale iska geli millimeter waay distance-heena. Okay, waa ujeedaa. Okay, total-kana hore u soo baranay waa inta xabo inta shay oo yahay space-kooda la isku dhufto. Okay, meeqa space meesha ku jirto? waa 1 waa 2 waa 3 waa 4 waa 5 waa 6 waa 7 waa 8 waa 9 9 waxa ku dhufana 500 tiradana ku keena. roog waa isla fahansanahay. waxaa noo dhiman laakiin levelka ma aanan baran. markii levelka marka rectangle-ka aa kugu tusinaa ama haddii kale ka naftirkiisa u isticmaalina. u fiirsa levelka hadda meeqa waaye. levelka waxa waaye waa z direction. hadda maxaa haysanaa x iyo y. levelka fiir marka kanaan badinaa 3 baan ka dhigaynaa oo distance-hoodu isku yahay 100 camal. Okay, ama 100 ma ka dhigaynaa sug 100 ku daa Soomaa. laakiin waxaa ku qasban tahay close array ida. waxaa ku qasbanaa inaad topka ka tagno isometric-gada aad tagno south west south east north east iyo north west. south west-gaan tagaya maxaa ujeedaa marka shift iyo mouse-ka qaybtiisa kor qabo. maxaa ujeedaa goobaabadii maxaa ujeedaa 1 2 3 yani waa z direction wax kale ma aha. يعني waa kan waa si fiican aan muujino. يعني waxa waaye y waa dhankaas, dhinacana waa x, korkaana waa z. Okay, so marka toobka nagu soo celi. maxaa noo dhiman marka? hadda waxaa noo dhiman inaan isla fahanno midkan kale oo bowlerka la yiraahdo. Okay, so bowlerka marka waxaan sameynaa circle weyn aan soo qaadana shay goobaaba oo kale ah. shaygan oo kale ma soo qaatay haa. circle kala sameynaa oo yariisa kan centerkiisa ina raadiyo ku fiican tahay marka hore. centerkiisa hadda waa helay. meesha centerkiisa circle kale yar ku sameynaa. cabirka hadda muhiim ma cabirka markii adii oo cabir sax haysato ama cabir gooniya aad dananayso markaas ku sameysanay. Okay, waxaan rabaa marka shaygan inaan ku wareejiyo meeshaan. Okay, waxaan leeyahay marka bowler array isticmaala markaan objects-ka waa kuwan labadaas array inaan ku wareejiyo. enter leeyahay center point-ga oo shayga weyn lagu wareegay ay shayga ku leeyahay waa xaqana leeyahay. Okay, waxa ujeedaa marka uu ku badiyay. soo marka inta item oo arabto item-ka meeshaan laga badiyaa markasta 8 meeqa waa hadda meeqa ah 6 soo maaha 12 xababa ka dhig. Okay, 12 xababa ka dhigto. Okay, soo marka meeshaan hadana angle ahaan waa marka ma ujeedaa angle between waa ujeedaa marka maxaa waay angle-ku waxa laga xisaabtiisa wuxuu ku imaanaa shaygan meesha ka bilowdo iyo kan meesha ka bilowdo inta u dhaxayso waay. Okay, soo marka hadda 30 marka gelidid 20 oo kale ka dhig. hadda fiiriya tirada ma isbedelin. Okay, oo alifka isma bedelin laakiin maxaa dareemay dhinacaan waay u soo sikatay. angle-ka 300 ka yar macnaha 360 degree hadda meeshaan ay ahayd 360 degree markay ka yartaa macnaheedu waxay ka dhigan tahay marka 220 waay macnaha 360 ma aysan gaarin. laakiin goormo fit ku noqonaa 30 xab markuu noqdo fiiri 360 degree noqonay 330 waa wili. Okay,
اوكي ujeedaa 360 degree waa soo marka akhyaaray faa'iidooyinkaas ayuu leeyahay arrayga in la isticmaalo waxaan idin rajeynaa inaad practice badan sameysaan oo yacni softwareka waxaa wuu optionna badan yahay wuu comedy badan yahay wax oo la soo koobi kara haba yaraatee ma aha insha allah koorsigana mar dhow insha allah inaad soo gabagabinaa rajeynaynaa wixii kaloo comments ah oo ayagana muhiim ah oo meesha aan ku xusinaa jira qaarkood sida trim oo kale sida loo sameeyo shay sida meel looga delado kale yacni tusaale ahaan oo kale hadda homeka markaa joogno oo kale kan oo kale hadda anaga ma aanan baran trim aa la yihahdaa okay sidaan oo kale hadda lens loogu tiraa okay waxyaalahaas oo kale marka inaan baran ayagana muhiim waaye ujeeda hadda language slash tir camal macna marka kuwaasna bonus ahaan aan u baranaynaa insha allah markii lecture-adan aan dhameeyno wixii kale oo u arko daruuri inay yihiin waa isla fiirinaynaa hal video oo kale oo bonus ah ama laba video wixii gaaraanba aan soo dhiganaa insha allah waa mahadsantihiin la socodkiina lecture-kan halkan ay kusoo gabagabeynayna waxaa noo balana lecture 11 insha allah